640 baa sii sheer garaya intaan koogahay ayaan wallahi nii sheegaya boqorada isteelka adeerkeed buu ilaahay dhagax ka dhigay waxa la islahaa dhalinyartan marka ay isguursato adeerkeed uu naxaya aqoonsi ayuu Soomaaliland ku odhanayaa horta awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa in aad caafimaad qabtid maalinta ku wacnaato horta ma rabin barnaamijyada noocan oo kala ah in aan ka soo hadlo aniga meeshan waxaan ku soo gudbiyaa wax bulshada faa'iido u leh laakiin hora waxa loogu mahmaahay ku qabatay iyo qadar alla waa la qaataa inay saas tahay u maleynaa haddii aan khalday qaybta hoose ee commentiga ayaad iga sixi kartaan sidoo kale reexamarkuna waxa ay ku mahmaahan tan maqaldaayade cimrigaaga oo raaga geel dhalaayo ku tusiya haddaba inta aan u guda gelin muuqaalkaas yarka ah ee soconaya 12 daqiiqo reaction inaan ka bixiyo bal waxa idin ogeysiinayaa in qaybtii labaad ee barnaamijkii awada sugeyseen ee ku saabsanaa wararka boqortooyada Ingiriiska boqolkiiba 80 ba awada sugeyseen insha Allah waa diyaar waxa uu idin soo galayaa barta YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga saacada geeska Afrika markii ay tahay 5 galabnimo ama 11 saac oo galabnimo qaybtiisa labaad waa on fire ama waa dab iyo holac dhowr jiho ayaan idin kaxayn doonaa waxyaabo waxa jira in ogeen arimo dumarka Soomaaliyeed kaliya in ay u qaas yihiin baa waxaan ogaaday in dumarkoo dhan ay ka siman yihiin muuqaalkaas waa on fire waa dab iyo holac insha Allah xilligaas ayuu idin soo galayaa isdiyaariya haddaba aan u soo laabano programkeena aan ka hadli rabo maanta horta sida u wada jeedaanba muuqaalkan waxa bartiisa YouTube ka soo dhigay saaxiibkay ayaan le waa wuriye sare YouTube-kiisa waa kaasa waxaan rabaa in aad subscribe u saartaan sidoo kale waxa uu soo daayaa barnaamijyada inta badan dadka Soomaaliyeed ay aadka u daneeyaan halkan ayaan ka salaamay walaalkay ayaan le muuqaalka waxa uu ayaan le ciwaan uga dhigay haykal aabihiis oo sheegay in boqorada loo diraayo warqada naxdin boqorada waa gabar reer Muqdisho ah waxa ay ku jirtaa gabdhaha ugu caansan TikTok-ga sidoo kale waxa ay ku jirtaa gabdhihii labadii sane ee ugu dambeysay ama sanad iyo barkii ugu dambeysay baraha bulshada khaasatan TikTok-ga waxa ay ku haysatay xaraan markaan leeyahay ma ahade inay wax xumaan soo geliso micnihi waa loo bagac dhigi waay 1 milyan iyo 200,000 oo followers ay haysataa sidoo kale boqorada waxa dhawaan ay isguursadeen wiil lagu magacaabo Haykal asaguna waa wiil ree Somaliland ah sida hadda aan meelaha ka arkayna waxa la ii sheegay in wadankan aan ku suganahay ee Malaysia uu yimid dhowr bari ka hor waxaan ku leeyahay brother welcome ku soo dhawow bariis subaxii lagu quraacanayo ku soo dhawow habeen aan la seexan ku soo dhawow magaalo qofka markuu si dhaqaaqaba hoobiyaal laga dabaridayo ama dhabarkiisa dhowr xabba loogu dhufanayo waxaan ka wadaa qofka hadda ku qoslaya waxa arkaysaa marka jeesatid ku dhahay kana ku dhahay arkaysaa laakiin koran uga bixina waxaas marka al-umum soo dhawow brother meeshan waa Malaysia wadan islaam ah wadan meel kasta cuntada lagu gado ay xalaal tahay okay intaasi kadib Haykal waxa ay isguursadeen boqorada isteelka boqorada iyo Haykal arimaha bulshada noloshooda aad baa loola socday mar waxa jirta ay Hargeysa tagtay oo aad iyo aad boqorada loo dhaliilay kadib isaga ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho inay bishii Ramadaanka ahayd ee la soo dhaafaa u maleynaa uu yimid adiga al-umum xamre waxa ay ku dhigatay boqorada sagootin iyo xalfad aroos maadaama ay u socotay meesha uu saygeedii joogay ee Hargeysa ah boqorada meesha way shidatay saaxiibadeed ehelkeedii qaraabadeedii walaalaheed dal iyo dibadba waa loo wada hambaliyeeyay okay hadda laakiin waxa jirta arin soo korortay oo dhowrkii maalin ay ugu dambeysay social media aad iyo aad u haysatay waana in ayada iyo Haykal ay kala tageen Haykal intuusan imaan wadankan aan ku noolahay ee Malaysia boqorada isteelka ayaa dhowr bari ka hor waxa ay tagtay magaaladii caasimadda ahayd ee ay ku dhalatay ku soo barbaartay kana soo dhooftay ku laabatay isla markiiba baraha bulshada Soomaali warku sheekadoodii qabsadeen meesha waxa laga bilaabay waa isfureen
kan waaye kan waaye la adigu wax kasta un waa la sheegay marka aniga waxa igu kalifay in muuqaalkan aan idin soo duubo ama aan reaction ka bixiya waxay tahay waxaan arkay wax maskaxdayda ka weyn yacni laba qof way isfuraan way kala tagaan ceeb ma ah wax ceeb ma ah laakiin muuqaalkan uu saaxiibkay ayaan la soo dhigay waxa ku jira nin shakalkiisa marka aragtid qaab mas'uul oo kale u dhaqmaayo laakiin xoogaa hadallo aan title-kiisa ahayn macnaheedu fahmaysaa marka muuqaalka 14 daqiiqo soconaya waxyaabaha mucjizooyinka leh ee aan arkay ee ugu kalifay in reaction aan ka bixiyana muuqaalka dhexdiisa ayaad ku daawan doontaan hadda waxaan u sii deynayaa muuqaalkiisa reactionna waa ka bixinaynaa isagana waxa laga tuuray Malaysia la geeyay uu si taariibaya sababtoo sanadkii waxa jira waxa la soo saaray lottery waxa lagu yiraahdaa soo noqon qayrka wuxuu tagay qayrka way dhinteen ama way nool yihiin okay wuxuu dhahay isagii waa la sii tahriibiyay dhahay Malaysia la keenay haddana wuxuu iska soo jaray sanadkan waxaa jira lottery horta lotteryga intiina badan waa fahansantihiin qofka meel walba uu joogo ayuu ka soo xareysan karaa lotteryga waa noocaas marka walaalkeen haykal hadda waxaana leedahay Soomaa aha Malaysia wuxuu u yimid in lottery oo xareysto Mareykanna aado haye bal oo arkeena ku soco haye jidka marba jidkii siraad marba la guuri marka reexa markuu hadayna aqoonsiga keenayn haddaba waxaan doonayaa warbixinta inaan wax yar niga faaloodo waxa jirta walaalayaal dadka dadweynaha ama dadkoo dhan warar ay isla dhex marayaan qaarna ay xaqiiqiyin qaarna ay run been yihiin anu intaan koogahay ayaan nii sheegaya 640 baa sii sheer garaya intaan koogahay ayaan wallahi nii sheegaya haddaba ogow wuxuu taagan yahay inta aan ka ogahay baan wallahi idin sheegaya macnihi waa qof sida ay aniga ila tahay og xaqiiq yacni waxaan ku xaqiiqsaday uu dhaartay oo wuxuu yiri wallahi sida ay wax u dhaceen ayaan idin la wadaagaya boqorada isteelka iyo horta haykal mayna kala tagin ismay furin boqorada isteelka iyo horta haykal mayna kala tagin ismay furin bas marka haddaysa kala tagin oo isfurin bas haye maxaa marka int bas ma hadalka meesha ku xirno haddaysa kala tagin oo isfurin waa alxamdulillah waa laba shakhsi oo dhalinyaro ah okay haddaysa isfurin maxaan sii sheer gareynaa ooba aan macnaheedu isku sii daalinaaba mase waa sugnaa bas haye waa fasax haddana haye laakiin dhibaato yar ayaa dhacday ninka haykal la yidhaahdo xasan sheekh markii uu ku dhawaaqay aqoonsiga uu diiday Somaliland reer Hargeysa oo dhan gabadha saas oo soo eegeen ina maqleyseen ila ma aha umaleyna waa in kugu soo celinaa suga dhageysta waxyar dhageysta xasan sheekh markii uu ku dhawaaqay aqoonsiga uu diiday Somaliland reer Hargeysa oo dhan gabadha saas oo soo eegeen maxay ka eegayaan markii gabadha reer Hargeysa macnaheedu xasan sheekh baa okay xasan sheekh madaxweyne noqday boqorada isteelka reer Hargeysa oo dhan baa saas u soo wada fiiriyay haye maxay ka fiirinayaan ila kaliyeed baa reexamar dhex maraysa magaaladii oo caana sababtoo gabadhani boqorada isteelka inta badan ma soo baxdo boqorada isteelkuna waxay isku bahdishay guri waxay tagtay wiilkii ay dhaleen وحافظي ولي بريسكي كعونا يهويد يابي ويل شقايستي وميتكي يدونا بريسكي حافظة لميس اوكي waxyaabaha igu kalifay in muuqaalkan aan reaction ka bixiyo oo waliba barteeda YouTube iyo Facebook aan soo dhigo waa waxyaabahan wuxuu taagan yahay boqorada isteelka qalad bay gashay oo waxa ay u tagtay wiil guriga hooyadiis wali canjeelo ka cuna haddana hadalkii uu sii raaciyo wuxuu yiri iyaduna dhinacbay raashinkii ama canjeeladii ama briiskii iyaduna ka cunaysa horta sanadku waa 2022 waa bisha 9 adduunka hadda waa uu isbedelay waa waxa jiri jirtay ninka dhalinyarada ah haddii uu baaga muddo yahay hadduu xaas guursado in guriga hooyadiis uu keeno meeshaas ay kula noolaato laakiin maanta aniga hadalkan
miga dhaadhicin wuxuuse iga dhaadhicin boqorada isteelka waa gabar dhalinyaro ah sidoo kale waa gabar talented ah haykalna asna kamaba liitaba Hargeysa maantay waa laba qof oo dhalinyaro ah oo hadda isguursaday aniga shaqsiyan haddii aan dhaho Hargeysa inay laba qol ka kireystaan ama villa kireystaan in ay ku noolaadaan haykal iyo boqorada isteelka maba waayi karinba nolol iyo lacag ma waayi karin waana inii sababayna boqorada isteelka waxa ay leedahay YouTube haykal wuxuu leeyahay YouTube boqorada waxa ay leedahay TikTok 1 milyan iyo 200 oo followers haysta haykal sidoo kale asagana wuu leeyahay sida aad hadda la wada socotaanba dhalinyaradii Soomaaliyeed ee aniga aan ku jiro waxaan ka wada bariiseynaa xilligan social media aniga TikTok waa leeyahay laakiin TikTok live game la ciyaaraa jira aniga ma ciyaaro laakiin YouTube kan iyo Facebook iyo meelaheegan iska xamaasha okay gabadha marka game-ka ciyaartay TikTok live ka soo gasha YouTube kana leh ayada iyo ninkeeda ma waxay waayeen $400 ee ay biishaan ma waxay ka soo waayeen social media bal ila dhageysta ilaahba in ku dhaariyade boqorada isteelka halkii muuqaal ay barteeda YouTube ka soo dhigto haddii 100,000 oo kor u dhaafo ana inii xaqiijinaya gabadhaas average-ka la daawanayo inuu tiro badan yahay wallaahi waxay sameyn kartaa $200 halkii muuqaal ka sameyn kartaa iska wadaa $300 oo bil ah iska badaay ku soco haye okay waa ku raacni ku soco lacag bay waayeen guriga hooyadiis buu geey canjeele ka cunaysa waxaas ay okay waa ayada xitaa kuwa ka daran wax ka darana jira haye siida waa sheekadu markay wiilkii iyo gabadhu guriis ku soo baxaan banaana wiilku gabadha u shaqaysto markaas uu qofku iskeenay waxay noqotay xasan sheekhnaba ku dhawaaqay aqoonsigii baan diiday jib gabadhiina waxay soo duubtay intay soo gashay live calaacal wuxuu taagan yahay xasan sheekh markii la doortay gabadhii yartahay jiq calaacal video war xasan sheekh waxaa la doortay dhowr bilood ka hor videogan hadda lagu wareejinayana waa shala maahane daraad see wax u wadaa brother ku soco bal haye sida qofkii garanaya ayaa garanaya ninkana waxba laga tuurayba ilaa iyo Malaysia laga tuuray filinkiisana markii uu xamar joogay ayaa loo sameeyay passport Soomaali oo lagu yiri meesha iskaga carar meesha haddaba boqorada isteelka maxaa ku soo celiyay Muqdisho iyadoo la guursaday oo la yiri ninkaaga la deg boqorada isteelka adaa su'aash ku weydiinayna maxaa Hargeysa ka soo celiyay jawaabtaas adan kaaga fadhinaa okay ku soco bal haye ku soco haye sida bal haye la deg Hargeysa la deg maxaa ku soo celiyay Muqdisho warbixintan ku haya haddaba boqorada isteelka ninka waxa lagu yiri hadduu Hargeysa sii joogo gabadhiina way joogaysaa isaaqu markaa dhaka ayay sameeyeen xaafadda wiilkana ka soo jeedo dhakay sameeyeen wiilkan seenu masaafuriina oo wadankan uga saarnaa Turkiya hadduu tago waa laga daba tagayaa laakiin Malaysia haddaan geyno qaxootiyadaasuu iska dhiibayaa ama marka la is-ilooba buu soo noqon doonaa haddaba wax yar aan inka dhaho kaas arrintaas wuxuu yiri haddii Turkiga la geeyo way uga daba imaanaysaa laakiin haddii Malaysia la keeno qaxootiyadaasu iska galaa ayaduna meesheeday joogaysaa brother Turkiga wuxuu rabaa maanta markii aad Turkiga tagaysid wuxuu rabaa in visa haysatid laakiin Malaysia waxaan ku sheegayaa adigan hadda hadaa rabtid biri subax baan ku keeni karaa Malaysia biri subax baan ku keeni karaa laakiin Turkiga safaarad baa la tagaa formal la buuxiyaa inta laga baxa damiina la raadiyaa laakiin Malaysia one day baan ku keenayaa adiga hadaa diyaar tahay marka brother taas waa ka diidnay Turkiga iyo Malaysia Turkiga adag Malaysia waxa ka xigta kaliya Malaysia $2,000 oo pocket money ah oo aawadatid marka ay laboorka ka soo degtid lagu dhaho haye inta u socotaa lacag moodata ha $2,000 hadaa dhahdidna visa waa on arrival 30 biri baa baasaboorkaaga jug lagu siinayaa sida aniga hadalka meeshaas aan uga baxay wixii fikir iyo tusaale ah hoos ayaa noogu reebi kartaa qaybta commentiga muuqaalka like saar